السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج كينا وحين كويجينا بها أخرسكا hirdanka dunida horumarka bulshada iyo hayaanka nololeedba waxa dabar u ah wax akhriska umada haddii ay akhriska daris la tahay waxa loo aqoonsadaa mid horu martay haddii ay akhriska ka aradan tahayna waxa loogu yeedhaa ummad dib u dhacday akhrisku waxa uu kobciyaa maanka waxa uu dhex mushaaxaa maskaxda waxa uuna dhisaa fikirka iyo fahamka qofeed dhanka kale akhrisku waxa uu keenaa helista aqoon cusub saadaalinta mustaqbalka la sheekaysiga quruumihii galbaday iyo ka warhelidda mahadhooyinka ummadihii hore xeeldheerayaasha akhrisku waxa ay halhays ka dhigtaan akhrisku waxa uu ina baraa saaxiibo hore oo aynaan aqoonin si kastaba ha ahaato waxaynu ka warhaynaa aafooyinka ay ka midka yihiin qabyaaladda quudhsiga qaranburburka iyo qawadka ee bulshada Soomaaliyeed halligay inay sabab u tahay akhris la'aantu haddaba akhrisku waa imise jir goorma ayuu soo bilaabmay waa maxayse akhrisku tani waa ummadii akhriska waa ummadii akhriska waayo eebbaweyne subxaanahu watacaala waxauu nebi maxamed ku amray akhriska waana mid xagga alle ka yimi sidaas awgeed xeeldheerayaasha macanaysta qur-aanka kariimka ah ayaa sheegaya in amarkaasi aanu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam oo keliya ku koobnayn uu yahay mid ummadda islaamka oo idil ku socda haddaan hoos ugu sii dhaadhaco mowduucan la magac baxay tabaha akhriska waxaynu ku lafaguri doonaa ablaablaynta akhriska heerka uu ka taagan yahay islaamka caadaysiga iyo joogtaynta dabciyada akhristaha wanaagsan sida buug loo akhriyo iyo arrimo kale oo la mida qeexidda akhrisku waa mid lagu kala duwan yahay sababtuna waa salballaadhka iyo baaxadda weyn ee uu leeyahay isla markaasina uu u noqday hagaha dunida iyo hilinka guusha akhriska iyo qoraalka ayaa iyaguna ah laba isku sidkan oo aan kala maarmin waana xirfado gacmeed iyo maskaxeed oo la isku barbaariyo la iskuna tababaro horeeto iyo dambeetaba akhrisku waxa uu ahaa soo jiraan ku xardhan sooyaalka aadamaha iyada oo aan la carabaabi karin aminta uu soo bilaabmay balse la odorosi karo in bilowgii jiritaankaba uu la jaan qaaday maadaama oo aynu nahay ummad aan akhriska la deris ahayn waxaynu maqaalkan kooban ku iftiiminaynaa muhiimadda uu inoo leeyahay akhrisku iyo xeeladaha ugu habboon ee aynu ku kasban karno caado wax akhris akhrisku waa mid lagu kala duwan yahay faalayntiisa falanqayntiisa iyo farshaxamayntiisa balse laguma kala fogo fahamka guud ee aan ka qaadan karno iyo ujeedka ay xambaarsan yihiin sharaxaadaha midhodhalka ah ee ay farta inoogu fiiqeen xeeldheerayaasha raad raacay akhriska ee ku talaax tegey qaamuuska afkeenna hooye ee Soomaaliga ee uu qalinka u qaatay afaqoonkii weynaa ee banxaristiisa jannaha ka waraabiyo ee marxuum Yaasiin Keenadiid waxa uu bogga sagaalaad ee buuggaas ku ujeedaynayaa ereyga akhris in uu yahay erey ama hadal qoran kicin ku dhawaaqid naqid iyo marin aqoonyahanka kale ee isna ku xeesha dheer rifidda afka iyo cilmiga suugaanta Cabdalle Mansuur ayaa isna ereyga akhri ku qeexaya erayo ama weedho qoran daalacasho ama kor ugu dhawaaqid geesta kale mucjamka weyn ee af carabigu waxa uu ereyga qiraa'a ku micnaynayaa inuu yahay ku dhawaaqidda wax qoran aynu haddaba isku soo xoorino xulashooyinka xeeldheerayaasha iyo xaglaha ay iska taageen akhriska isla markaasna aynu u soo koobno sida ugu quman ee loo qeexi karo innaga oo aan ka tegayn tiraabta erey qeexayaasha iyo qaabka ay u dhaabadeeyeen akhris waa habka loo dhuuxo dhigane ama erayo meel ku dhigan loona dhugto nuxurka ku dheehan dhan kale haddii aynu iska taagno akhrisku waa furaha fahamka dunida waayo akhrisku waa wehelka horumarka hadaf yeelashada himilo fogaanta hanuuninta hal abuurka hooban gurashada iyo hawaale waranka sow haddaba sax ma aha inaynu nidhaahno akhrisku waa muftaaxa lagu furayo kownkan ballaadhan maadaama oo tallaabadii la qaadaaba ay akhriska ku aroorayso akhrisku waxa uu soo jiray muddo ku siman inta aadamuhu ku uuman yahay dunidan guudkeeda taas waxa maragu ah markasta oo la furo sooyaalka ummadihii hore ee hoyday waxaa la helaa habkii ay wax u qori jireen
sidoo kale waxaa la raad raacaa habkii ay u noolaayeen, sida ay u dhaqmi jireen, qaabkii ay u xidhiidhi jireen, qaabkii ay u xididi jireen, iyo caado dhaqameedyadii ay caanka ku ahaayeen, kuwaasi oo isugu biyo shubanaya in idilahaantoodba ay salka ku hayaan akhriska. sidaynu wada ognahay akhriska iyo qoraalku ma kala hadhaan oo had iyo goor way isku lamaan yihiin, balse qoraalku waa habka loo dhaxal reebo aqoonta ee loo dhigo hab erayeed isku xidhan oo noqday weedho macne iyo murtile. akhriska iyo Soomaalida haddii aynu eegno, muddo ku siman 60 sano ka hor ummadda Soomaaliyeed ma ay lahayn far Soomaali qoran oo saxa, balse waxa ay lahayd af guuna oo loogu yeedho af Soomaali, isla markaana bahwadaag la afafka la isku yidhaahdo Afro-Asian oo ay xulafo ku yihiin afafka Carabiga, Xawsaha, Cimraaniyadda, Oromada, Canfariga iyo Amxaariga, waxayna jirib hoosaad ku sii yihiin afka Oromada iyo Canfariga oo ay wadaagaan bahda afafka. af kastaba ha lagu daalacdee walow uu horeba u jiray akhrisku, waxaa qalinka lagu duugay hilaadii 1972 waxaana la hirgeliyey sanadkii 1973 iyada oo dadaal ba'an iyo halgan hadhsan waa ah loo galay habka akhriska qoraalka sidii loo gaadhsiin lahaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay degan yihiin iyo degal kasta oo ay ku nool yihiinba. waxaa la unkay ololihii horumarinta farta Soomaaliga oo guri walba iyo geed kasta la hoos kuududsaday sidii qofka Soomaaliga ah u yeelan lahaa xirfadda akhris qoraalka, isla jeerkaasna uu qayb uga noqon lahaa dunida akhriska. intaas ka gadaal guntiga ayay u geejisteen ummadda Soomaaliyeed akhriska iyo qoraalka, waxaana soo shaabaxay shakhsiyaad hor leh oo u qalin qaatay dhaqankii bulshadu ku dhaadan jirtay iyo afkii qarniyada badan soo badbaaday isaga oo aan qornayn. bal aynu isla eegno addoonsigii akhriska iyo ummadaha madow. dal la qaato, diin la diido, dumar la xoogo iyo dad la addoonsadaba inkasta oo dunidani soo martay, waxaa ugu darnayd addoonsigii akhriska iyo qoraalka ee dadka madow lagula kacay, taas oo aan odhan karno waa goobtii ugu weyneed ee reer galbeedku inaga galay. qarniyadii tegay qaanuunka dalka Mareykanku ma uu ogolayn in ay wax akhriyaan waxna qoraan dadka madow. gudaha waddankaas waxaa mamnuuc ka ahayd inay xataa isku dayaan amaba soo hadal qaadaan akhriska dadkaas madowgaahi. ciddii xuduuddaas ka talowdana waxaa lagu qaadi jiray xeerkii uga yaalay qaanuunkaas. haddaba micnaha ku dheehan ee aan ka qaadan karno ayaa ah in akhrisku uu yahay furaha fahamka dunida. sababta Mareykanku ugu diidanaa dadka madowgaahina ay tahay inuu islahaa hadday wax akhriyaan waxna qoraan waxay ogaanayaan awoodda Ilaahay ku galladay iyo inay yihiin dad jira oo la mida kuwa gumaysanaya, isla markaasna ay quwadahooda adeegsan doonaan. aragtiyihii akhriska iyo filosoofiyadii hore. waxaan bartan ku soo qaadan doonaa badh ka mid ah aragtiyaha filosoofiyadii dunidan ka boqoolay ee baadhista badan ku sameeyey akhriska, isla markaasna aragtiyahooda kala gedisan inoo soo bandhigay, kuwaasi oo wax badan ka dirsay akhriska iyo faa'iidada uu inoo leeyahay. abwaan Philippe Soleras oo u dhashay waddanka Faransiiska, isagoo danaysiinaya qaranka intaynaan qaadan ee qoraalka ku degdegin inaan horta wax akhrino oo baadhitaan dheer samayno, waxa uu ina leeyahay waxba ma qori karno haddii aynaan garanayn sida wax loo akhriyo. John Herschel, caalimkii dhanka xidigiska iyo kiimikada ee noolaa 1792 ilaa 1871 una dhashay dalka Ingiriisku, waxa uu yidhi cidda ay u fududaato inuu wax akhristaa waa cid guulaysatay, maxaa yeelay waxa uu goostaa beeraha caalamka, waxa indhihiisa u furma noloshii quruumihii galbaday, waxa uuna u dhigmaa qof la noolaa intoodii wanaagsanayd, waxaana uu isu maleeyaa in dunida oo dhan loo fududeeyey. Voltaire oo ahaa filosof Faransiis ahaa oo noolaa 1694 ilaa 1778 ayaa la weydiiyey yaa hogaamin doona dadka, waxa uuna ku jawaabay kuwa yaqaana sida wax loo akhriyo. Margaret Fuller oo Mareykan ahayd noolaydna 1810 ilaa 1850 isla markaasna ahayd gabadh u ololeysa xuquuqda haweenka, ayaa ka tagtay hal ku dhig qof kasta oo hogaanuhan weyn uu ku hadaaqo, tilmaamayana qofka akhriska ku xeesha dheeri inuu ummadda hogaamin karo, wax badanna uu og yahay. waxay tidhi today a reader, tomorrow a leader. akhristaha maantu waa hogaamiyaha berri. Ernest Hemingway
oo ahaa wariye Maraykan oo noolaa 1899 ilaa 1961 ayaa ku adkeysanaya inuu buugu yahay saaxiibka kaliya ee lagu kalsoonaan karo isla markaasna daacadda ah. waxa uu yiri there is no friend as loyal as a book. ma jiro saaxiib u daacad ah sida buugga. Socrates ama Socrates oo ah filosof u dhashay dalka Greek oo noolaa 399 ilaa 460 ka hor dhalashadii Nabi Ciise ayaa la weydiiyay sidee ayaa dadka u hormayn lahayd ee u kala saari lahayd ee u kala mudnaysiin lahayd. waxa uu yiri waxaan weydiin lahaa inta buug ee uu akhriyay. xildheerayaasha akhriska ayaa sheega inuu ka dhigan yahay qofka wax akhriya qof noolaa 1000 sano oo kale, taasoo ay uga jeedaan inuu yahay qof waayo araga oo wax badan og, qarniyadii tagayna ka faalloon kara. haddaba aynu isla eegno islaamka iyo wax akhriska. akhrisku waa iftiinka nolosha, waana sunno rabbaani ah oo aadmiga lagu toosiyo, tubta hagaagsanna ku hanuuniya. islaamku waxa uu ogsoon yahay horeeto iyo dambeetaba in fariintii ugu horeysay ee Eebbaweyne subxaanahu wa tacaala u soo diray Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ay ku bilaabantay faridda iyo dhiirigelinta akhriska. sida ku xardhan suuratul Calaq, Eebbaweyne subxaanahu wa tacaala waxa uu nabigiisa Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaato ku amraya inuu akhriyo magaca Eebbaha isaga iyo umanaha kaleba unkay. sidaas awgeed akhriska waxa loo oran karaa waa mid fikta sare kaga jira diinta islaamka, sida ku dheehan kitaabka Majmacu Zawaa'id oo yiri haddii aan maalin dhammaysto aniga oo aan aqoon kororsan waxay iga dhigan tahay maalin iga khasaaray. markale nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo tilmaamaya xaqa ubadku waalidka ku leeyahay waxa uu yiri ilmuhu waxa uu waalidkii ku leeyahay 3 xaq: inuu magac wanaagsan u bixiyo marka uu dhasho, in uu baro akhriska iyo qorista, in uu raadiyo lamaane fiican marka uu qaan gaadho. wadiiqada akhristaha wanaagsan uu raaco marka aynu eegnana, akhristaha wanaagsan waa qof wax akhriya isaga oo leh ujeedo gaara, kana run sheega inta ku talogalka ah ee u qorshaysan. waa akhrista gaadha miidda iyo mulaaxda akhriska. sidoo kale waa akhrista ay aqoontu dusha uga soo baxdo oo fikirka falanqaynta iyo fagaare ka hadalkaba ku xeel dheer.